haddaba haddii aad tahay arday cusub oo doonaya suuqani forex inuu wax ka qabsado sidoo kalena arday suuqani hore ugu jiray ku jahwareersan tirada tirada badan leh beerarka aan xadka lahayn qaadanaya muuqaalkani maanta waa muuqaalkaagii waxaan kaga hadli doonaa muhiimadda ay leedahay dhowrka beer keliya ee lagu trade gareeyo. waxaa jira dhowr beer oo suuqani forex laga trade gareeyo oo laga ganacsado, sidaa awgeed muhiimadda ay ku saleysan tahay in dhowr yaroo beer ah aad ku ekaatid ayaan ka hadli doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya qofka dhowrka beer ee trade ee xadidan qaata iyo qofka trade-yada beerarka aadka u tirada badan ee qaata, farqiga u dhexeeyo. intaan u gudbin alleydinkii waxaan doonaynaa inaan ka hadalno beerarka ugu habboon ee qofka suuqani forex soo galaya ama ku cusub ama hore ugu guda jiray in xoogga saaro loo baahan yahay. waxaan isla arkaynaa beerka ugu horeeya ee ah Euro USD. Euro USD qof walbo suuqani forex ku jira inta badan waa lagu trade gareeyaa. waa lacagta dadyowga nidaamyada kala duwan, istaraatiijiyada kala duwan ku trade gareeya ee ku trade gareeyaan. sidoo kale lacagta xigta waxa weeyaan waa JBP USD. JBP USD waa lacag aad iyo aad u mug leh suuqani forex looga shaqeysto. sidoo kale waxaa jira USD CHF iyo USD CAD oo labada hore soo sheegnay Euro USD iyo JBP USD cagsi ku ah. haddaba afartan beer maxaan u soo qaadanay? afartan beer waa afarta beer ugu muhiimsan ee suuqa aad iyo aad looga trade gareeyo maalin walba. sidaa awgeed anaga kuma lihin afartooda beer trade gareey, hase ahaatee maanta waxaan doonaynaa inaan laba aan u kala qaadno. maanta waa 30 October, November ayaan ugu soo aadan. waxaan doonaynaa in aad samaysatid jadwalkaasi wuxuu kugu hagayaa sida aad u noqon lahayd qof guuleysto, qof isku filan, qof aanan walwal fara badan oosan ku furnayn. haddaba aan isla aragno Euro USD iyo USD CHF waa laba lacag cagsin isku ah. JBP USD USD CAD waa laba lacag iyagana cagsi isku ah. sidaa awgeed muhiimadda ay leedahay in lagu ekaado keliya dhowr beer waxa weeyaan qodobadan soo socdo. inaad ku ekaatid dhowr beer oo xadidan waxay kaa saamaxaysaa inaad noqotid qof deganaansho joogto ah leh, waayo kuguma furnaan doono wax la yiraahdo xawaaro iyo orod. sidaa darteed beerarka kooban oo kuu degsan markaad fursad ka weysid qasam maahan inaad beerar kaleeta aad u gudubtid, waayo waxaa kuu qorshaysan keliya waxa weeyaan inta kooban ee aad adiga aad balaankaaga ku jira. qodobka xiga ee ah qofka beerarkiisu xadidan yihiin waxa weeyaan khasaaro yar iyo asalkaaga oo san badan. haddii beerarkaagu aad u kooban yihiin asal fara badan ma jiri doono, waayo waxaa laga yaabaa in wiigaasi gudihiisa hal fursad ama laba fursad aad ka heshid inta beerar xadidan ee ku degsan. qodobka saddexaad ee tiradada xadidan ee ku fiican tahay ee muhiimna u yahay qof walba inuu xoogga saaro waxa weeyaan inaad isku qabi doontid kalsooni aad iyo aad u mug weyn, waayo trade-ka markaad qaadanaysid waa trade aad si fiican ugu fiirsatid, aadan shaki kaaga jirin, oosan lahayn wax carqalad ah. sidaa awgeed trade aad qaadanaysid wuxuu noqon doonaa laydinkii mid kalsooni aad iyo aad u weyn leh. qodobka afaraad ee ah qofka trade-ka xadidan oo faa'iidada u leeyahay waxa weeyaan in xirfadaadu ay siyaadayso. tusaale taa waxa weeyaan haddii JBP USD iyo USD CAD keliya ay ku xadidan yihiin, lacagaha kaleeta aysan kula socon, labadaasi waxaa ku noqonaysaa laba lacagood aad meel walba ka taqaanid ilaa iyo intaasi muddo aad la soo socotay. sidoo kale waxaa noqonaysaa haddii tiradada xadidan yihiin walwalkaagu aad buu u yaraanayaa, waayo tirada fara badan ma baceysanaysid sooma. tirada fara badan ma baceysanaysid. qodobka lixaad waxaa tahay qof feejigan oo feejignaantaada waa ay sareysaa, qof dhiifoon oo maanta idil waxaa tahay qof sugaya fursad, waayo haddii maanta idil wada trade aad bursanayso oo beerarkaagu aad u tiro badan yihiin ma noqonayso qof feejigan, oo waxaad dareemaysaa in beerar kaleeta aad ka heli kartid fursado. sidaa awgeed markani labadaani beer aad xoogga saartay fursadahoodii inta badan kaama baxsan doonaan oo waad ku feejigan tahay oo waad ilaashanaysaa. qodobka ugu dambeeya ee ah
dadka tiradada xadida qaataan muhiimadda ay u leedahay qorshe dhaxalgal ah oo waxaad soo qorsheynaysaa tusaale GBPUSD intii fursadaada aad qaadan ka hor sharciyada ay ku waafaqday iyo meelaha aad ka eegi kartid ayaad soo nodgaraysanaysaa qorshaha balaan ayaad ku imaanaysaa sidoo kale waxaan eegi doonaa haddii tirade badan aad ceersatid dhibaatada ay leedahay in tirade badan aad ceersatid dhibaatada ay leedahay waxaa ka mid ah walwal joogto ah oo maanta idil waad ka baqanaysaa tirade haddaad qaadatid inuu asalkaaga dhaco oo waxaad ka fikiraysaa tiradekani tirade huwa ma yahay tiradekani tirade ku degdegta miyaa oo tirade beerkani muxuu yahay beer aad kasoo fikirtid ma ahan adi unbaa isla hadlaya qodobka xiga tirade badan inaad qaadatid ay sabab u leedahay inaad dhibaato ku dhacdid waxaa ka mid ah cadaadis joogto ah inaad isdul saartid oo aad maanta idil qaladaadkaagii aad tiraad qalad waaye maxaa fursad u heli waaye maxaa interview heli waaye maxaa lacag u sameey waaye adi aad cadaadis saartid inta beer suuqan ku jirta maanta idil kor iyo hoos u daba socotid qodobka saddexaad ee ka mid ah in tirade badan aad ceersatid waxay tahay oo dhibaato kugu sababi karto inaad fursado la raadiyo maanta idil xilliyada suuqa la tirad garan xitaa aad dul taagan tahay charting beerkan fursad ka raadi kan wax ka raadi inta wax ka fiiri mid ku diyaarsan mid ahayna u sii aadaysa kana fursad ka dhiman kana roolka wax ka waafaqay kana ka waafaqin maanta idil fursad un baa raadinaysaa qodobka xiga waxa weeyaan oo qodobka afraad ah SL badan oo la qaato maanta idil haddii tiradada bataan oo aadan qorshe lahayn SL waad qaadanaysaa SL-ku ma ahan wax qalad ah waa part of the game waa trade-ka waa suuqa waxa uu ku dhisan yahay SLTB balse SL la qaato waxa ugu xanuun badan mid aan rule ku qaadan haddii maanta sharciyadaada ku wada dhameystireen trade ku qaaday shahaaga waxaad ku degsan yihiin aad trade ku qaadato SL kaaga dhaco la bas laakiin waxa maanta idil marmarsimo ka raadinaysa trade haddii aad rule kaaga meel kamid ah ka tagtid oo SL kaaga dhaco adoon baa cadays saaray leedahay maxaa u sugi waar qodob hebel maxaa u sugi waar rule hebel maxaa u sugi waar nidaamkayga inta oo qodobka afraad suuqa lagu jahwareero waa qasab suuqa in lagu jahwareero waayo maanta idil trade SL qaadanaysa oo waxa leedahay khasaaro joogta ku jirta waan ku jahwareerta suuqa ugu dambeyn waa iskaga tagaysaa marka tiradada inay ku xadidan yihiin waa ku muhiim hadda tiradada aad xadidan waxaad ogaanaysaa inaad hog ku dhici doonto qodobka lixaad kalsooni la'aan joogta ayaad ku qabanayso tusaale USD CHF ayaad indhays sharciyadaada in yar ayaa ka harsan USD CHF in rule ku waafaqo ma sugaysid USD kaada aadi ama USD aadi ama GBPUSD aadi tii aad dagsatay adoona soo fiirin kalsooni darro mid kale sii fiirinaysa taana tiradada badan waxyaala dhibaatada qofka ku keenay kamid tahay isku day in tiradada aad qaadanaysid aad xadid beerarka aad qaadanaysid ay ku jadwal gareysay qodobka ugu dambeeya ee ah qorshooyin aan dhammaan lahayn maalin walba maanta id qalin buuga wadata waxa qorsheynaysaa waxa leedahay weegan soo socdo saana sameena bishan socod saana yeela wixiina kama dhabeynaysid wax un baa kugu shaqaysanaya aad u jeedin taana waa mid laga soo gudbayo asxaabta bahda barlabad kasoo bada joogtaan waxaan idin leenahay mar walba tiradiyada badan waxa ka wacan tiradi xadidan haddaba aan isla eegno Euro USD USD CHF kaliya un baa ka badan ama GBPUSD USD CHF labaas lacagood waxyaalahaas ku barbardhinaya waxaa kamid ah waa laba lacag oo access ku ah midna haddii sell aado midda kale inta badan waxay aadaa buy oo waa iska soo horjeedaan sida awgeed bil cusub ayaa bilan doonta idinkii November isku dan bishaani soo socota in laba beero kamid ah intaan ku soo sheegay afartu ma wada hanba haddaad tahay arday cusub iyo haddaad tahay arday dhexaad iyo haddaad tahay arday hor u joogayba laba beer kaliya xooga saar waa laba bishaan soo socota oo November hadduu Ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda labadaas beer waxa ayna fiirin kadib waxaad samaysaa wixii ku nood gareysmay bal eeg xaaladda maanta aad ku sugan tahay iyo xaaladda maalintaasi November maalintay gabagabowdo xaaladda aad ku sugnaan doontid idinkii waxaana arki doontaa in isbedel muuqdo ay ku imaado haddaad doonaysid in isbedel fiican aad samaysid isku day inta beero kooban aan kula wadaagnay laba kamid xitaa ma wada ahan afartoodii laba kamid inaad qaadatid labadaasi aad xooga saartid kadibna natiijo aad ka keentid aad baad u mahadsantihiin baada barlabad kasoo baa joogtaan guulaysta baan idin leenahay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh